Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij ku saabsan shantii abaar ee ugu darneed ee soo martay adduunka. Waxaan soo qaadan doonaa shan abaarood oo waaweyn oo soo maray adduunka kuwaasoo tusaale u noqon kara guud ahaan abaarihii caalamka. Daawasho wanaagsan. 1. Abaartii beddeshay masaaridii hore ee qadiimiga ahaa. Culumta archaeology-ga ee loo yaqaan archaeologists ayaa waxay sameeyaan baaris weyn oo ku aadan boqortooyooyinkii hore ee masaarida. Waxaana la soo helay cadeymo muujinaya inay abaaro dabar jareen masaaridii hore. Abaarahaasoo ku dhuftay bariga dhexe iyo qaybo ka mid ah Yurub 4500 oo sano ka hor. Khubaro fara badan ayaa sheegay inaysan dagaalo sababin burburkii iyo dabargo-ay boqortooyooyinkaas masaarida ee ay sabab u ahayd abaaro waaweyn oo ku dhuftay dhulalkaas. Waxaana sidoo kale dhacay boqortooyadii Pharaohs oo xukumi jirtay 3000 oo sano dhulka weyn ee maanta loo yaqaano Masar, intii aynan soo bixin boqortooyadii Roomaanka. 2. Abaarkii cudurrada, taasoo looga shakiyay inuu faafinayay boorka. Abaartan weyn ayaa ka dilaacday dhulweynaha Mareykanka iyo Kanada 1930-kii waxayna saameyn xooggan ku yeelatay dad kor u dhaafaya 2 milyan oo qofood. Abaartan ayaana keensatay cudurro aad u faafa kuwaasoo ay la daalaa dhacayeen bulshooyinka dhulweynaha Mareykanka iyo Kanada. Waxaa la sheegaa in xilligaas aanan si dhab ah loo xaqiijin inuu boorku ka qayb qaadanayay fiditaanka cudurrada. Cudurradaasoo ahaa kuwo saameynaya sanbabada waxaana loo yaqaanay valley fever. Dadkuna waxay ahaayeen kuwo isla markiiba la daciifaya oo noqda kuwo macluulsan. Cudurradaas ayaana noqday kuwo waaweyn oo aad ugu faafa dhulweynaha Kanada iyo Mareykanka. Waxaa la sheegaa in xilligaas aanan si dhab ah loo xaqiijin inuu boorku ka qayb qaadanayay fiditaanka cudurrada. Cudurradaasoo ahaa kuwo saameynaya sanbabada waxaana loo yaqaanay valley fever. Dadkuna waxay ahaayeen kuwo isla markiiba la daciifaya oo noqda kuwo macluulsan. Cudurradaas ayaana noqday kuwo waaweyn oo aad ugu faafa dhulweynaha Kanada iyo Mareykanka. 3. Abaartii weyneed ee Shiinaha. Waddanka Shiinaha waxaa lagu yaqaanaa inay abaaro aad u fara badan horey uga dilaaceen, balse abaartii ugu weyneed, musiibadii ugu badneedna keensatay ee la diiwaan geliyay ayaa waxay ahayd abaartan aan hadda ka hadlayo. Abaartan ayaa waxay ka dilaacday waddanka Shiinaha sanadkii 1928 iyo 1930. Khubarada marka ay ka hadlayaan abaartan ka dilaacday waddanka Shiinaha waxay ku sheegaan midii ugu musiibada badneed ee ka dhacda qarnigii 20aad waddanka Shiinaha. Abaartan ayaana waxay keentay gaajo si baaxsan u faafta ee waddankaas, dhibaato weyn iyo saameyn ku yeelata dad gaaraya 3 ilaa 10 milyan oo qofood. Mar laga hadlayay sanadii 2017, mas'uuliyiin Shiineys ayaa waxa ay yiraahdeen abaartaas mar ay ka hadlayeen waxa ay ka dilaacday qaybta waqooyi ee waddanka Shiinaha waxayna ahayd abaartii ugu xumeed ee abid la diiwaan geliyo. Waxaana sabab u ahaa isbeddelka cimilada ee xawliga ku socda ee Shiinaha maadaama uu yahay waddan warshadihiisu ay aad u sareeyaan. 4. Abaarihii guud ahaan ku faafay caalamka. Baaritaan DNA oo la sameeyay ayaa waxa ay cadeynayaan in abaarahaas oo dhacay 75,000 ilaa 135,000 oo sano in u dhaxaysa ka hor inay mas'uuliyadeeda lahayd muhaajiriintii iyo isaga gudubkii bulshooyinka caalamka. Saynisyahanada ayaa waxay sheegeen arrintaas inay tahay arrin la xiriirta cimilada iyo isbeddelka dhulalka qaaradda Afrika iyo sidoo kale dhulalka kulul ee caalamka. Arrimahanna uunan sabab u ahayn aadanaha oo kaliya, waxaana abaarahaasi ay keensadeen inay xadidmaan isu gudubka kheyraadka iyo quutul daruuriga, taasoo keentay in bulshooyinkii mid walba nolol wacan uu raadiyo oo la haajiro. Abaaraha ayaana ahaa kuwo ka yimaaday isdhexgalkii bulshooyinka iyo muhaajiriinta. Abaartii burburisay boqortooyadii Mayaaniska ee loo yaqaan Mesoamerica ayaa waxaa ku dhuftay abaar aad u weyn taariikhda inta la ogyahay tii ugu darneed. Abaartaas oo saameyn weyn ku yeelatay korarkii boqortooyada dhulkaas maadaama 1200 oo sano ka hor ay jireen dagaallo fara badan oo kala dhexeeyay dalalkii markaas deriska la ahaa boqortooyada Mayanis ee Ameerikada Dhexe. Waxaana sabab u ahaa dagaaladaas waaweyn sii yaraanshiyaha biyaha iyo kheyraadka nolosha. Taasina waxay keentay inay meesha ka baxdo ilbaxnimadii lagu yaqaanay boqortooyada Mayanis ee Ameerikada Dhexe. Waxaana barnaamij gaar ah kusoo qaadan doonaa oo ku saabsan boqortooyooyinka